qarnigaas waqtigii nabi maxamed joogay xariis iyo nabadgelyo korkiisa aadee dad baa dhacdhacan iyo dhaqaqlanimadan iyo afxumadan ay ka dhici jirtay noocyo kala duwan leh marka haddii aynu iyagana qisaskoodii soo qaadano 5 qiso aynu soo qaadan doonaa qisada ugu horeysa waa qisadii ninkii la oran jiray Kacb ibn al-Ashraf nin kibray buu ahaayo carabta kamid ah mar walba wax kibraa oo ilaahay rasuulka ka hor yimaada lama waayo ninka isaga ahay nabigu afka ka dhigi waayay calayhi salaatu wasalaam aad buu caay jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabtii uu la hadlayo wuxuu warnaa ninka ah baa lagu sii eegan kari maayo ilaahay rasuulka caaye kuma u baxaya nin ku munaasib ahaa geesi ahaa fariid ahaa farsamo badnaa Muhammad ibn Maslama leeyay Muhammad ibn Maslama la oran jiray asxaabiga ayaa yiri aniga miyaan soo dilaa ha aniga igu duceey bulka aniga ku quusanaya kadibna laakiin daa wuxuu waxaan u baahanahay waxyaabaan ku marmarsoodo waxaad ii ogolaataa buu in adiga wax ka sheego si aan isaga kalsooni uga kasban karo waa farsamo oo macnaha aan ku yara duri karo wax ka sheegi karo waaye ka socod waa ku fasaxa kala day xidaaraysi iyo farsamo u tahay ninkii uu sii socdaan istiqaanan Muhammad ibn Maslama ee ninka gaalka Kacb ibn al-Ashraf looran jirayna way istiqaaneen ninkii uu tagay kadibna wuxuu wanayo ninkii oday ninkii aanu la joognay wuxuuna weydiinaya sadaqa iyo wax anagina xoob ma hayno marka waxaan kuugu yimi bal inaad xoogaa awr ama 2 awr oo raashina ama hayso uu qoslay wuxuu ma sidaasay u dhacday waan ogahay buu ka waliba uu disi cuslayn doonaa buu way ka sii daray buu waliba bay horta arrinkiisaanu yara eegaynaayo ilaa intuu soo oodmayo waan iskala sii wadaynaa waxba ka degdegi meynee horta teenan inoo dhamee waayay rahan baan ka doonayaa buu kalsooni maxaa rahan kaaga dhignaa buu qaar dumar ay keen buu waa ninkii bray dumarkiina qaar rahan iga dhig waxaan meesha ninkii carab u fiicnaada tahay ceeb bay kugu tahay islaam buu ayuu rahan u haystaa taay naga daa way hadda caruurta keen buu qaar caruura keen labada awra raashinka ah aan rahan u sii haysto taasina waa caruurta ceeb ku tahay buu waxa la oran doonaa berrito waa ilmihii loo rahmay labada awra raashinka ah marka taanay naga daa maxaad hadda rahan ka dhigay hubban ku keenay buu hubkaasa wanaagsan ma hubka ay keen buu asilaax goormaynu ballanaayo caawa hayno haatay caawadii buu soo guura galay isagoo wata nin kale oo si uu kalsoonidiisa u sii hagaajiyo si uu kalsoonaado ay isaga xagga hooyo kan la doonayo in la dilo xagga hooyo ay ka walaalayihiin Abu Naila la oranay iyo 2 nin oo kale oo inay saaxiib yihiin oo muujinayo hubkan uu muujinayo inuu rahan uga dhigayaana waa hubkii ay ku dilayeen way soo socdaan habeennimadii baa qalkii ku garaaco waa kuma waa Muhammad ibn Maslam dooridiisii baa ninkan gaalka la hadasho waxay tiri war waqtiga lama baxee iska joog wuxuu dhimay waa ninkii odayga ahaa mustaqaanay yimid Muhammad ibn Maslama la oran jiro deegaasigu hadda ayo kale uu iska daadega wala hawla tumaatiye gobanimo ma ahayna aqalkuun hoosta ka soo xidhata wallahi codkaaga geeri baan ka arkayaa bay kabar cajiiba bay haydo codkaagaas geeri ba iga muuqata sidii uu ku daadagayo Muhammadna khad buu soo dajiyay qoladan la socoto wuxuu ninka saasan sameeynaya marka aan ku dhaga uun khaarajiye ninkii oo aad isu soo cadareeyay oo aad u soo kankamayo udgoon oo markaasuu Muhammad ku warday aad baabad udgoon tahay bal madaxaaga aan yara ursado Allah maxaa cadar ka soo uraya rasuulka carabtii u cajaayibsanayd baan qabaayo ooridii carab ugu cajaayibsanayd ugu cadar badnayd baan qabaa sidaa daraadeed baan udgoonkan u helay bal ursi madaxa markuu ku dhagay mar labaad hadana uu aad u qabtay madaxiisa intuu saa ursaday ayay nimankii kale ag taagnaan hubkii looga dhigayay rahan uu yahay ayaa dhakada lagu jaray warkiisii uu dhamaaday saasay nabiga ugu bashaareeyeen calayhi salaatu wasalaam marka ninka ciqaabtiisii nabigu wuxuu ka dhigay in uu wadada ka duwo ama ummadda ka hor